ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo garabsanaya qeybaha kala duwan ee ciidamada Jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhanaa maleeshiyaadka khawaarijta ka fuliyay deegaanada Lafagari, Xabaale Afwaax, Weel Maaro iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Howlgalladani oo si xeeladeysan loo qorsheeyay ayaa lagu beegsaday fariisimo iyo goobo ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadka khawaarijta. Ciidamada ayaana gudaha u galay goobihii iyo godadadii ay gabaadka ka dhigan jireen maleeshiyaadka, iyagoona burburiyay xarumo iyo saldhigyo ay u adeegsan jireen abaabulka iyo kaydinta agabyada iyo dhaqdhaqaaqyada maleeshiyaadka argagixisada ay ka fulin jireen deegaanada gobolka Jubbada Hoose. Saraakiisha hogaaminaysay howlgalkan ayaa sheegay in ujeedada howlgalladani ay tahay in la sii xoojiyo cadaadiska lagu hayo maleeshiyaadka khawaarijta si looga saaro goobaha iyo godadada ay ku dhumaaleysanayaan, loona xaqiijiyo amniga iyo badqabka shacabka ku nool deegaanadaasi. Saraakiisha ayaa waxay sidoo kale cadeeyeen in howlgallada noocan oo kale ay sii socon doonaan ilaa ay si buuxda looga ciribtirayo maleeshiyaadka loona xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida guud ee gobolka Jubbada Hoose. Shirwa Umar, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida gobolka Jubbada Hoose.